wadka ha u kadlayn keligaa daldalan maysid nabaaba hee shanka muxuu yidhi kenya nama taqaan etoobiya nama taqaan buu dhihi jira allah u naxariista janno fardowsa allaa geeya jigjigaa lagu qaarajiyey keligaa ha daldalo wawotee istiri keligaa ha daldalo yaa ku jira horta maxamed cismaan basaa ku jira soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada wadka ha uu degdegin katageerido wadka ha uu degdegin wadka ha uu degdegin noolaada noolaada dhallinyaradii wataasade dal dhallinyaradiisaa difaacda wataa dhallinyaradiyadii isla markiina hees bay ka soo tuuba ka kala ogay ankayagu waa kalkaayoge mandaas baa u kacay yeena kugu duwan hawada hawaday ku duwanayaan hawada kagan waabana hawada kugu duwan hayaa joogo yidhi kumandoos gorgor iyo haram cad naxoreeya
كاسكا قالي انا اذكر يا طيبان افكها بيلنا افكها بيلي لنا اللي انت يلا شرفت عليه كوريو طيبان كاسكا قالي انا كوريو طيبان كاسكا قالي انا كوريو طيبان نعم يا وقرنك يا قهم قدمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيارا وسلم تسليما كثيرا waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo daafaha adduunka ka joogto waa salaamaya salaanta islaamkan ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي الظالمين تهنى قمت إلهي الظالمين تهنى قمت إلهي وحن كبر ينا رب الخالق وبشر وحن كبر ينا رب العزة جل وجلاله الله كون كان أبورتي إن أدو مدي سنهي إعنا قلنا له إن عابدنا نو أبورتي وحن كبر ينا بريادة يدا إنو نقا إجابه oo naga aqbalo oo salaada naga aqbalo oo cibaadada naga aqbalo oo muuminiinta isagu uu doortay uu naga dhigay islaam isaga naga dhigay oo na doortay kuwii u qalma inaa ilaahay naga dhigo oo hanuun noogu daro baan ilaahay weydiisanayna meel kastoo caalamka ka joogno ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibooyinka dhacaya inuu dhinac naga bariyo ilaahay waxaan ka baryaynaa ummad islaama oo hanuunsan oo wadada mustaqiimka ah haysa inuu ilaahay naga dhigo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo fadqalalada iyo maxaan ku iraahdaa khilaafka iyo hooga iyo ba'a dhexyaal ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga samata bixiyo isagaana samata bixin kara ilaahay isagaa wakiil naga ah ilaahay isagaa yiri aniga i barya ilaah waa ku baryaynaa maslaxadda ummadda Soomaaliyeed baan kaa baryaynaa ilaaha qulubta rogrogo qulubtayada xaqa ku ro ilaahu inta lunsan ee dhibaatada wada ee wadanka cadowga u soo hogaaminaysa ee u shaqaynaysa ee irsaaqada ka doonana ilaahu irsaaqad ka fiican dhinacaaga ka sii rabbiga yow irsaaqad aan jaajoosnimo ahayn iyo halaaga wadankooda ilaahayow sii hanuun haddii u qoran yahana ilaahu ka soo hanuuni ilaahayow cirq xun bay ku jiraan dembi xun bay ku jiraan ilaahu ka soo hanuuni haddaad hanuun adigu u qodhay haddaada u qoranna surqun baan leenahay meeshaadu ya meel dhanna ilaah wanagana dhaafi ilaah wana dhibeenana dhaafi ilaahu maanta maalin aan jaajoosnimo iyo qaybin iyo lacag wadankayaga aan ku baabi'ino maalin loo istaaga maaha waa maalin wadankii iyo dadkii iyo diintii dayacan yihiin haweeye marka ilaahay baryadiisa waxaan ku baryahayaa rabbiga caalamiinka waxaan ka baryahayaa maqrib baan hadda ka soo jeestay ilaahay baan u soo sujuuday cidna ma dulmiyo cidna ma dhaco cidna ma laayo ilaahay waxa cidna qof wax dilahayo wax dulminahayo kuma raaco waa ka soo horjeestaa taladayda wax kuma dulmiyo oo wax laguma dilo xoolahayga wax laguma dilo oo wax laguma dulmiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu baryadayda iga ajiibo ummadda Soomaaliya iyo dalkayaga iyo diintayada maanta inuu badbaadsho baan ilaahay weydiisanaya ilaahuna badbaadi ilaahu wada badbaada lehna badbaadi ilaahu daaqoosyadan shaydaan ku qafaashay rabbiga yow ha nagala tashan yaa rabbil caalamiin allaha koonka iskala how allaha awooda lahow allaha raxmaanka ah raxiimka ah ilaahay wadankayaga iyo dadkayaga iyo diintayada ilaahu badbaadi ilaahu diinkii aan qolofta lahayn baanu maanta nahay ilaahu wadan ku caban ilaahu xagaagan u soo caran ilaahu albaabadaadii baan taaganaho garaacaynaa yaa khaaliq bashar ilaahu albaabadaha naga xiran
إله والبابدا ده هنجا حيرا إله ونحريست هذا النوفر إله والبابدا بريادة النوفر إله والبابدا عبادة النوفر إله يو ربك يو والبابدا عافي معك النوفر إله مضيد واشرين تهي دبدي داخل بدتك واشرين عذر ما كل عي قلوبتي يا مسكح ذا كشرين ماتشورتي أما بدن كودو دتك وابكاي إله نبدادي إله نعاف إله نعاف عافي معك إله عافمات بنكويسين إله عافي إيه عافمات إيه هنون بنكعبرنا يا رب العالمين إله نهنون إله نهنون إله ضد مستقيم كان نهنون إله شيطان كان نقابو إله شياطين كان نقابو إله شيطان إنس كان نقابو إله مسيوين كان داعي نقابو ربي يا رب العالمين إله عذرتها وحنا نجح إجابة نقابو إله ضد كي يضيع بقول لي ما رياه إله رب جاي ضد يضيع بقول لي ما رياه إله يو رب جاي وما ضيعه إله بدلاد ربي يودي بدي داخل بنقول بدبادي إله حق يدين تنقصك إله عدالة تنقصك إله عربك يا ضربتك إلى عليه إله قلبك يا شيطانك وسواسية يا خناسك إله كإلى عليه فاتح مراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن والرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ducada ka bixi ka dambeeya waxa weeye waxaan ka hadlahayaa maanta oo aan ka hadlahayaa ummadda Soomaaliyeed baan la hadlahayaa dhalinyarada Soomaaliyeed baan la hadlahayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyarooy waad u jeedaan meesha maanta xal maray dhalinyarooy dibadda daaqilba waad u jeedaan maanta meesha maray adduumaadka horumaray ee aan tiigsanayno ee wadamadooda u qaxayno oo nafteeda u halaagayno oo u tarhiibayno oo maanta qofkii la dhaha dibaddan ku geynayay ina keen inta la dhaho la kaxaysto luqyada ma taqaana kaliyaha loogala baxaya dibad jacayl intuu ka qabo dibadda aad u ordaysaan wiilal idinkoo kala iyo gabdho idinkoo kala badbaadsaday oo dhistay Soomaaliya waxa maanta ay ku jirto oo waayahan 20 sano ku jirto caalamku waa soo maray caalamku wax uu soo maray dagaal buu soo maray ragaadiyay oo la isxasuuqay oo la isdhameeyay oo waxba la iskula harin oo wax xeera oo mataqaana lagu badbaadi kara aan lahayn wuu soo maray dagaalku wuu soo maray dadka kaliyaha laga guranayo oo isbeer baartiga ah 200 oo sano ka hor bay ka jidhay Yurub iyo Asia Afrika waa soo gaaray haday soo gaadheen Yurub iyo Asia dadka yimid yaa kaliyaha ka guranayay sida maanta na haysato kale kaliya ma organka oo dhan waay jirka bini aadanka dadka ka ganacsada goorma ayuu anku ka soo saaray sharci oo goorma America ka soo saaray oo England ka soo saaray waa hore iyagu ka soo saareen sawaayo waa soo mareen oo waa soo arkeen waxa indhali ah waa inaga waa dadkeena Soomaaliyeed oo waxba adduunka kala socon oo waxba ka garanayn haddana intii xumayd ka qaatayba haway dadkan siyaasiyiinta siyaasi ma aha waa maafiyo wax siyaasi la dhaho loogu yeerayaa ma jiro waa maafiyo nimankii dhammaa ee masiirka wadanka madaxweynaha kala shirahayay ee afarta dowlad goboleed haystay waxaad ogeydeen bay sameeyeen masiirkii wadanka meeshii ku rideen waad u jeedaan waa la orday madaxweynihii wax markuu kari waayey oo ka samray oo dhan walba ka maray oo wax walba ku sameeyey wuxuu yiri intii wadanku 5 u kala go'i lahaa dowladda iyo afarta dowlad goboleed awal Soomaaliland maqnayd war waxa rabti maxaad rabtaan qolka galo ii soo warrama qolka galo soo sheegta waxa rabtaan waxaan rabnaa doodasho dadban waa yahay sameeyo maxaad u samaysay markii la yina wuxuu yiri wadanku inuu kala burburo oo si kala fogaado oo meel la isugu soo noqdo dambe la waayo baan ka baqay waa sax hadal wanaagsan buu ku dhawaaq waa nabadoon madaxweynaha iyagu sharaf iyo karaamuna leeyahay marka ilaa 91 mana soo maray madaxweyne dhahaya wadanku inuu kala go'o oo kala irdhooba baan ka baqay oo u sameeyay waxaas xaqdiga ah oo dastuurka iyaga ku salaysnayn oo sharciga inoo dhigan aan ahayn waxaan u ogolaaday dadka iyo dalka iyo diintayda u tanaasulo inay si kala go'do oo markay garow go'do oo baydhaba go'do oo Dhuusamareeb go'do oo Kismaayo awalba waa go'onayda waxba inoo kuma ool si kala go'o Jowhar go'do macnaa afarta shanta goboleed muxuu meesha ku hayaa madaxweynuhu muxuu aslaxo sameeyay waxba taas wuxuu ka doortay marka inaan la kala go'in la isaysto wuxuu kaloo madaxweynaha iyagu uu sameeyay oo intuu arrintaa ku jiray la soo gudboonaatay dhowr jeer baa Dani iyo Axmed Madoobe waxay dhaheen beesha caalamka hana soo dhex gasho
UN ku hana soo dhex galo umamuuta hana soo dhex galo shirka hala keeno hayna dhexdhexaadiyaan tala ma hayna haynoo taliyaan waa naga caqli badan yihiin caqli ma hayna caqligooda ha noogu taliyaan waa naga aragti dheer yihiin aragti dheernimadooda ha noogu taliyaan waa naga wadanisan yihiin wadanninimadooda ha noogu taliyaan wax badan baa madaxweynaha la isku haystay waa la qarinhay dani iyo axmed madoobe qodobkaasay istaageen ka qaybgeli mayno qodobkaasa madaxweynaha lagu xidhahay beesha caalamku ha noo taliso sidii gabre iyo mini sanaawi iyo mahiige iyo ay noogu talin jireen baan u baahannahay dheh beesha caalamka shirka keen oo hana dhexdhexaadiso farmaajo wuxuu yidhi maya annagu aan wax isku haysanno annagu aan wax isku diidanaano annagu aan wax isku raacno annagu aan isu tanaasulno ma garad aan wax kala goosanno walaalaan nahay meel wax kala geyn mayno kii wax goostaa meel dheer geyn mahaye waddanka dhexdiisa le waaye ma garanaysaa wax kasta innaga hayna dhex maraan laakiin shisheeye inuu maaragtay maxayto qadiyadda iyo qaranka soomaaliyeed uu maanta tala ka qaato oo aan meesha soo fariisiyo ina dhexdhexaadiyo lagama yaabo waxaad rabtiin baan idiin tanaasulayaa soo doorasho dadban ma aha haa soo guddigii doorashooyinku madaxa bannaanaa inaan joojiya ma aha haa soo in ciidanka laga soo saara ma aha gado haa soo ma aha in mataqaanaa muxuu ahayeeto laaluush lagu soo saaro baarlamaanka xubnaha baarlamaaniga noqon doona oo xildhibaanada ah haa wuxuu yidhi waxaan idinka diiday ciidanka in gada laga soo saaro waa idinka diiday soo ma aha 13 muqdisho 13 muqdisho xaqa u heshay oo madaxweynuhu codsaday oo baarlamaanka ka codsaday oy u oggolaadeen oy u saxiixeen oo isagu saxiixay soo in banaadir loo diida ma aha haa okay waxa weeye waa inta kale oo dhan waa idin yeelay laakiin gada ciidanka kama soo saarayo waa anoo dhintay waxaas oo xakaara madaxweynaha waxay u marinayaan inay fusho go'aanka iyo amarka ay soo siisay Kenya iyo Ethiopia bahalkii iyo Imaaraat iyo carabaha ka dambeeya Sacuudi baa Imaaraat xukunta Imaaraat maxay xaarka geela iyagu karsan jiray baa saalada geela iyagaan u diri jirnay xilligii maxamed siyaad barre joogay khaaluq basharkan ku dhaar konteyneeraal loo saari jiray saalada geela Soomaaliyeed lagamana gadi jirin sadaqa loo san jiray marka ayaga codsaday ana ku caawiyay dheen xaarka geela rabna malaha fatalays bay ka dhiganayeen beeray falanaya markay kariyaan biyahay ka miirtaan waa cabaan sharaab bay ka dhigtaan fadalka hara gufarka harana fatalay beeraha ku shubtaan bay ka dhiganayeen warkoodii oo dhan baa la soo xaaray haweeye marka nimankii geela iyaga xaarkiisa baryi jiray maanta in loo kala dhunto oo qadiyadii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo jiritaankeedii loo baabi'iyo oo cagta lagu dhifto xoogaa sadaneerta ah oo la siiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ay ma ka yeelaynaa war ma ka yeelaynaa war yaa raalli ku ah maya raalli kama niin kamana yeelayno maya ummadda Soomaaliyeed waxay tiri maya nin la lahaa Faysal Rooble iyo mid kaloo beer weyn oo ag fadhiyay waa dhexdaas waxa wiilal ka soo duubeen diinta waddanka ma lagu dhaqayaa diinta waddankeena in diinta lagu dhaqo islaamka barfasooraad tihiin garkii caddaaday iyo madaxii caddaaday Soomaaliyeed oo 78 jir ah in diinta waddanka lagu dhaqo barfasooradii Soomaaliyeedow maxaa ka qabtaan waddanka Ameerika joogaan Faysal Rooble iyo midka kaloo beerka weyn magaciisa ma aqaan wuxuu yidhi I say no mucjisadii iigu horreysay oo nin Soomaaliyeed ka maqlo I say no gaaloobe horey gaaloobe markaasaa tale laga weydiinayaa Soomaaliya kuwaan hadda taraytarada oo Kenya iyo Dubai usii kala xamaaranayo oo ku soo xajiyayo xajkii u qaba Ilaahay inuu Kenya iyo yaallo Nairobi iyo yaallo Dubai waa I say no diin inaan qaadano waa I say no Soomaali inay noolaato waa I say no qaran inaan noqono waa I say no inaan heshiino waa I say no inaan midowno waa I say no jiritaanka ummadda Soomaaliyeed halkaasay ka istaageen maxayna la gudboon waad u jeedaan gobol walba dhibaatada ka socota waad u jeedaan gada waxa ka dhacayo
waad u jeedaa xaraaska ka socda waad u jeedaa barakac ka socda waad u jeedaa qafaalashada ka socda diyaaradaa lagu garaacaya taangi baa lagu garaacaya waa ciidankayagii danab iyo gorgor baa jooga maahane waa la qabsan lahaa ilaa baydhabaa la qabsan lahaa ciidankaa yarkaahoo farmaajo geeyaa hortaagan iyo shacabkii oo kacay oo qadiyad leh oo wadaniina oo karti leh oo xeel dagaal yaqaan reergado waa la yaqaan taariikhday ku yaallaan ha waa waran mareexaanoo waa qaaxa kugu maqan baa horey loo yiri dagaallo waa hore lala galay ajanabi nagu soo duulay baa ereygaasi ku baxa waa waran mareexaano waa qaaxa kugu maqan neba inuu kaa baaqdo warankaas waa markay cadowga ishayaan sokeeyahaban lamama diriraan reerka gada u badan la gada mareexaan kaliyuma degan reerka gada u badan sokeeyaha mala la diriraanba weli dagaal sokeeyo iyaga iyo qabiil dhex maray anigu ma maqal jidhaana kama warqab waxa weeye tolkay iyo soomaalidaydii maxaa ina la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed maxaa la gudboon waad u jeedaan xamar iyo agagaarkeeda iyo ilaa iyo koonfur waxa ka dhacayo carruurtii baa keliyaha laga guranaya oo al-shabaabkii baa gacan la siinaya oo shacabkii qarinaya oo wixii qalad ah oo dowladoodu samayso ama xukuumadda sare ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaado ama ciidamada amniga haysta ha ahaada amniga ka shaqeeya oo u xilsaaran ha ahaadaane dadka reer xamar fadhiya ee shacabkaahu waxuu ka mudaharaadayo wuxuu diiday leeyahay waxuu ka hor imaanayo ma jidho war maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu qaldamo albaabkiisa dhoobta mudaharaadka sameeya boorarka ku soo qorta waxaad diidantii madaxweyne waxaasaan diidnanahay dhaa laakiin meediya qof leeyahay haddaad ka soo hadasho oo inta mid $2 ku siiya dhaho hadaloo madaxweynaha waxu sheeg war taasuma shaqaynayso war iscadeeya reer banaadir iscadeeya 13 xildhibaanna raadsada ee aqalka sare waxa dulanka wadanka ka dhacayo oo amni darrada ah oo carruurta la qalanaya ah oo mataqaana dadka dowladda shaatigeeda wata ay samaynayaan ee dowladda iyo shacabka iska horkeenaya ay samaynayaanna war ka hor imaada oo madaxtooyada soo dhoobta baarlamaan ma jire madaxtooyada soo dhoobta madaxweynaha u sheegoo dhaha dulankaasaan qabnaa boorar ku soo qorta makarafoonna soo qaata meeshaan tvgan hadda anigu aan ka hadlaayoo kale madaxweynaha lagalama hadli karo waa in hortiisa lagu soo mudaharaado waa in raadiga muqdisho la tago waa in warlaliska loo soo mariyo snt ma garanaysaa waxa weeye marka dhiidhiya shacab yahow kaca oo kaca qarannimadiinna u kaca jiritaankiinna u kaca fayuujarkiinna u kaca dowladdiinna u kaca diintiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinna difaacda meel aad joogtaanba waxba qabyaaladu tari weyday tuug xun oo dhabarku muuqdo waxba tari waayey oo samadiide ah waagii maxamed siyaab barre noocaan nimanka ku dhaqmahayo oo maafiyada ah wuxuu dhihi jiray samadiide wax kale ma oran jirin soomaalidoo dhan samadiiday u taqaana madaxweynahana ku dhawaaqay waxa weeye haddii inaan maanta dabaqabashuu leeyahay waddanku ye soomaali shacabow dhallinyaroy hooyooyinow ragow inaan maanta u istaagin waxa weeye waa la isweydiinayaa wallaahi falastiin baa naga caqli badnaan wallaahi falastiin baa naga qadiyad badnaan wallaahi falastiin baa naga dadnimo badnaan wallaahi falastiin baa naga difaac badnaan maba gaara falastiin experience bay qabaan 400 sano la garaacay experience bay qabaan america waa u mabacdhigi karaa wadabood inagoo indhala dhagala ay soomaalidu indhala dhagala oo maxaa tiray indhaha iyo dhagaha maxaa tiray de qabiil baa tiray qabyaalad baan leh qabyaalad baa tiray nin jeclaysi baa tiray eex baa tiray cadaalad darraa tiray hunguri iyo jaajoosni baa tiray marka difaac baa waddanku u baahan yahay dhalinyaro waddanku in la difaaco u baahan yahay carruurtii kaliyihii baa laga guranaya in la difaacay u baahan tahay gobolkii gada waa la soo galay in la difaacay u baahan tahay af iyo adanba in la kaco qayladu wilato iyo aaway kooxdii qayladhaan de ninkii madaxda u ahaa waaba jirayo isbitaal buu yaallaa cabdi shire qoladii qayladhaan baan u baahannahay maantoo kale marka tii hore inta lagu ceebiyo iyagoo abaalmarin leh iyagoo in adduunka laga abaalmariyo leh oo dowladda xasan sheikh ay abaal mariso oo dowladda farmaajo abaal mariso yaa la iloobo la inoo gareeyey markii la inoo gareeyana waaba niyad jabeeno wa kuwaa wada xanuunka iyo stroogu ku wada dhaco isbitaallada daadsan maxaan ku idhahdaa gabadhii maxaan ku idhahdaa aamina dhool waa sakaraad
hal kelli baa u shaqaynayso kelladii baa xanuun ka qabta tii kale horey bay u baaba'do u dhimanto looga baxsho ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanahayaa oo daafaha caalamka jooga dadka muxsiniinta ah oo xoolaha leh dadka ilaahay wax siiyey dadka waxgaradka ah dadka qalbiga nadiifka ah leh dadka mataqaanaa muxuu ahayeeto u naxariista dadkooda oo ilaahay ka cabsada inay gabadhaas aamino dhool waa sakaraad kellidii kale ba xanuunkii gaaray xanuunkuna kansar ma aha waa infection kelyaha inta ku dhacay tii hore markii laga bixiyey tii kale baa haddana mataqaanaa gabadhii daciif intay noqotay bay xanuunsata ma aha kansar waayo kansar waxba lagama qaban karo kansar ma aha marka waxaan codsanayaa oo ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa dadka ilaahay xoolaha siiyey dadka ilaahay irsaaqada siiyey dadka ilaahay qalbiga fiican siiyey dadka soomaalinimadu ku weyn tahay dadka islaamnimadu dhab ka tahay waxaan ka codsanayaa aamina dhool waa sakaraad in qaaraan degdega loo guro oo mataqaan kellideeda maanta melag ha u dhimatee dayacyay u dhiman iyadoo soomaali ka dhalatay melag ha u dhimatee dayacyay u dhiman halkaasay facebooka tolla ayay ku haysaa waryaa soomaaliyahay waryaas aamina dhool waa fanaanad qaran ma laha tol khaasa ma laha ama qoladii qabtay ha ahaataa ama qoladan ay ka dhalatay ha ahaatee ma laha ummadda soomaaliyeed bay u dhex tahay waxaan marka weydiisanayaa dadkayga muxsiniinta ah oo soomaaliyadoo weligood isbadbaadin jiro oo isgacan qaban jiray aamina dhool in loo gurmado aamina dhool in loo gudbado qaaraan loo guro qof walba wuxuu heli karo ugu tuuro qolaa santuuq u fudhay loogu tuuro ama xawilaadaha magaceeda inta lagu qoro xawilaadaha loo dhigo taasaan codsanaya halkaasaan uga baxaya arrimahaas kale qaran difaacaas waa muhiim inaan dowladdeenna iyo qarankeenna iyo farmaajo badbaadsanna waa muhiim farmaajo tuug ma aha jaajuus ma aha ma doonayo taaka waddanka ka mida in la qaato ma doonayo inuu dheel la galo ama gorgortan la galo nin shisheeye ah inuu waddankiisa gorgortan kula galo never ever xataa tala xataa inuu inta la fariisto tala waddanka weydiiyo nin caddaana ama ka qaata hadduu ula yimaado lagama yaabo garab buu nooga baahan yahay marka farmaajo garab isaga maahane maanta waxna badbaadinahayaa ma laha ilaahayna waa og yahay soomaalina waa og tahay haddii aan qadiyad iyo qabyaalad iyo qurun idin qaadin halo haa guddoomiye life baan ku jiraa male lifeka ka soo bax meeshana macna markaad dhammaysatid gruupka bal imo weyl oo maxariir la dhahayana gabdhoo foodeeyey luuqoo u galay gruupkuu kala dirayey marka go'aanaan ka gaarno ogow ka saar meesha go'aan cidna ha kala sugina ka saar bye bye marka waxa weeye guddoomiyihii baa ila hadlayay marka waxa waaye meeshaan waxaa loo baahan yahay halgan weliga iyo halgan baan ku jirna ilaa xaawiye aadan ama ay soo bilowda halganka yagu axmed gurey waxaan u malaynayaa in laga joogo 600 oo sano ka hor bay ahayd xilligu halganka bilaabo olo kalaa ku xigtay halgankii afraad alla ya arxamu raaximiin dhammaantood allah u naxariisto halgankii afraad wuxuu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan buu ahaa halgankii shalaadna wuxuu ahaa syl waa kaan ku xorownay intaa xornimaan raadinayn 700 oo sano baa soomaaliya inay bini aadan ka xorowdo jahaad ugu jidhay 700 oo sano wallaahi bilaahi tallaahi bay jahaad ugu jidhay wadaninimadu waxay tahay iyo jahaadku macnaha uu leeyahay qofkii doonayo waxaad fiirsataa filinka turkish ay soo saadhay oo bilowday jahaadkii bilowday 1228 jahaadkii ka bilowday waddanka turkish oo nin artugurul la dhaho uu wadi jiray artugurul sulaymaan shaah filimkaasu wuxuu netflixku ku jira qofkii soomaaliya raba inuu wadani noqdo ama jahaad waddankiisa ku jahaadiyo deyntiisa filimkaa fiirso artugurul baa la yidhaahdaa artugurul sulaymaan shaah waa 1228 baa reer galbeed iyo carabo oo dhan turkish isugu tageen waa iska xoreeyeen yuu dhalay marka artugurul yuu dhalay ma taqaanin wiilka artugurul ee caalamka dhan qabsaday miyaa soomaaliyay taqaanaa reer hebel ina hebel dani xasan sheekh shariif
wax dulloobay oo nolosha ku dhinto daxirig ayagoo nool galay baad daba ordaysaan oo macno idin lale yaa yuu dhalay artuguruul saleemaan shaah yuu dhalay fiirsada netfelkiska ka raadiya ku qora artuguruul ku qora wuxuu dhalay boqortooyadii Osman Empire wiilkii sameeyey Osman Ertugrul waaye Saleemaan Shaah boqortooyadii Turkish ee caanka ahayd ee caalamka dhaqmisatay Osman Ottoman ninkii sameeyey ee waddanka caalamku islaam xoreeyey waa Kululu Osman maxaan ku Ertugrul Saleemaan Shaah ka raadiya netfalakiska wadaninimo iyo mataqaan mujaahidnimaad baranaysaan marka qadiyadiina wadaninimo iyo mujaahidnimo ayaad mataqaan ka baranaysaan fiirsada Ertugrul filimkiis haddaan dameer idinku jirin oo dad adduunka ku dhintay tihiin sida kuwa hadda maafiyada ah oo daxirigu iyagoo nool galay ee jaajuuska u ah Kenya iyo Carabo iyo gaalo haddiina ahayn filimkaa fiirsada wadaninimo waxay tahay jihaadku wuxuu yahay yaad ka baranaysaan qofku markuu wadan yahay waa inuu ku jahaado wadankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa waa inuu jahaada waxa weeye marka waan u jeednaa Puntland waxa ka dhacaya Puntland waa u jeednaa gobol aan maanta dhibaatadu hareerayn ma jiro waayo gobol walba maayar mafia aha xukuma gobol walba maayar mafia aha xukuma mafio Bragata Ros ba xukuma maxaa maayarkaas awoodda intaa la egyaa siiyey maaha lacagta imaaraad keliya maaha qabyaalad baa feertaagan dadka xoolihiisii baa la dhacaya dadka gabdhihii baa la dhacaya gabdhaha keliyaha lagala baxahayo Garowe raad baa galay Garowe raadka Xamar iyo Marka iyo Baydhabo iyo Hargeysa raadka ku jira baax Garowe galay 2016 buuna galay Garowe ka hor waa fayoobay 16 17 18 waa ku yaryaray wax qarqarsoodi oo la qarqarin hayay ahayd waadax baa hadda laga dhigay gobol walba ururkaas kaliyaha la baxaya wuxuu ku leeyahay meel saldhiga guri underground ah oo saldhig ah oon cid arki ka dhaajirin qofka la gelinayana indhaha laga xiraya Garowe 3 meelood baa ku taal sida Xamar waan ognahay de kalkacay ku taala Baraxley bay ku taala dhanka Puntland bay ku taala war waa wax waadax ah organka dadka laga guranayo iyo caruurta baa ka socda waxa u dheer sixir bar anshuurtoodii waa la dhac taageero meel kale kama helan dowladda federaalka wixii uga yimaada aaran jamba cuna niiq qof dhihi kara niiq oo hadli kara ma jiro xabisyadaysaa uga buuxaan Garowe iyo waxa ugu daran Boosaaso waa buuxsameen kuwa hor leh in la dhisa maahanay kuwaad ogeyd oo la dhisay oo ama dowladdii hore dhistay ama maamuladii ka dambeeya dhiseen waa buuxaan ci wax dhihi kara male qof Facebooka share garayn kara wax ama dowlad ka hadlaya ama midnimo Soomaaliyeed ka hadlaya qof share garayn kara ma jiro askarku sheekii imaaraadku sameeyo BSIO gaalkacyo ka dhameeyey nin doorka oo dhowr iyo 70 qof lagu dilay oo raggii maaragtay reer mudug ahaa oo caaqibada ahaa lagu dhameeyey ciidankii BS miyaa la yiraahdaa balaayo Allah ku salliday oo imaaraadku samaysto ka amar qaato iyagu mushaarka siiya yaa lagu fasaxay dadkii dhalinyaradii waa lagu rahayaa wadaad baa wuxuu ka akhriyaa la jimcadii dhaweyd Garowe dhexdeeda wuxuu ka akhriyay khudbadii markay dhamaatay oo jamaacada khudbadii dhamaatay yuu cabaar wuxuu haystay mataqaanaa maamulka maanta Puntland ka jira wax la aqbali kara ma aha dhahay waxa socda wax la yeeli kara ma aha dani baana u madax annaga dani baa la doortay oo baarlamaanka lagu doortay shacabku ma dooranay baarlamaanka doortay baarlamaanku ninkii kitaabka ku maray wadankan inuu si xaq ah u shaqaynayo ee dani ahaa wadankii wuu baaba'shay wax uu qabtay ma jiro dhibaatada uu u geystayna 20 sano oo dambe lagama soo waaqsan karo el allaaliya intii ilaahi dhaqaalaha waa u xira wuxuu ku wareejiyay imaaraad iyo aaran jaan
oo mid maxamuud shidda la dhaho oo maskaxda ilaahay kansar ka geliyey oo madaxweyne u yahay iyo midka maaliyadda haysto ina maxaan ku irahdayay ina abgaalow mid la dhaho oo madaxtooyada haysto ilaahay beerka kansar ka geliyey labadaa nin buu ku fasaxay hadduu ciidan yahay hadduu baarlamaan yahay hadduu shaqaale yahay hadduu labadaa nin baa maamulka puntland haysta dowladna ma aha puntland waa maamul goboleed maayar xukumo reer puntland waxay iska dhaadhiciyaan dowlad jecela waxay dhahaan qaranka dowladda puntland madaxweynaha puntland war dowladna ma tihidin maamul baad tihiin muqdisho hoos taga cumar finish baad hoos tagtaan runta wax idiin sheegaad weydeen waar cumar finish baad hoos tagtaan maayarada oo dhan soomaaliya maca muuse bixi cumar finish bay hoos tagayaan war may garateen waa maayar cumar finish hoos taga oo dowladda ka tirsan waa maamul maayar xukumo dowladna ma tihidin waa iska dhaadhicisee dowladda puntland qaranka puntland dowlad puntland male hadday puntland ay dowlad rabto ha go'do ha la aqoonsado markii la aqoonsado dowlad ahaan waa ugu yeeraynaa laakiin dowladna ma tiidin madaxweynena idinma haysto maayar jaajuusa oo dhintay oo dixiri galay isaga oo nool oo soconayo dixirigu saas ka leeyahay yaa idin xukumaa ee idin liqayoo dabada idinka dhigay yaa idin xukuma inta sandareertada ku raacday ee soortu qaaday ee aaranjaan la geray shacabka puntland muxuu u aaminsan yahay shiikhii baan idiin sheegayaa shiikhii wax badanba ma u oran waddankii waa baaba'ay sixir barar baa carradii qabsaday dadkii danyarta ahaa baahi bay u dhimanayaan waxaan ku idhahdaa meelihii ilihii dhaqaalaha ay ka shaqaysan jireen oo dhan imaaraad baa lagu wareejiyey waxa ugu dambeeyey eeraboorkii maxaa aheeto garowe baa ugu dambeeyey oo hadda saxiixii u dhiman yahay oo laga wareejiyey dadkii wax allaale iyo wax meel dadkii afka saara male baddi lama geli karo waa indho yar baa laga kireeyey oo doontii aadda waaba la qarxinahayaa oo doon ku dhacda male airboort dikadii waa xiran tahay boosaaso deeqa ciid baa awdo doono ma imaan kadho doontii timaadana db wall baa ka qaadata canshuurta xataa iyo aaranjan oo sheer ku ah canshuurta 3 jibaar baana laga dhigay wuxuu yiri sheekhu waa baaba'ay gobolkii puntland dadkii deganaa goroyoy gobolkuu dhacbuu noqdo okay xaaladdu markay halkaa maraysa buu yiri waxa waddanka xukuma baarlamaanka baarlamaan maahane minashiibiyada garowe ay 66 ahu ay dooratay deni markay baarlamaanka puntland xamar buu fadhiyaa dadka baarlamaaniga ah horta inayna sharci aqoon baan idin sheegaya waddanka dadka ku noolo sharci iyo hanaan dowladeed iyo loob midna ma taqaanin sharciga dowladu ku dhisan tahay ama ku dhaqanto shacabka yaga soomaaliyeedu ma taqaaniin waxa weeye maamul goboleed baarlamaan ma dhisan karo waa guddiga dowladda hoose baarlamaanka waxa aad ku sheegaysaan oo puntland waa guddiga dowladda hoose ee maamulka puntland ma aha baarlamaan ma aha danina madaxweyne ma aha puntlandna dowlad ma aha aan idiin kala sheego intaas baydhaba waa la mid dhuusamareeb waa la mid hirshabeelle waa la mid kismaayo waa la mid hargeysa waa la mid war maamul waxaad tihiin maamul deegaan baad tihiin waa maamul deegaanka puntland baarlamaanka waxaad ku sheegaysaan maamul deegaan waaye madaxweynaha ninka aad ku sheegaysaan waa maayar gobolka puntland dowladda waxaad ku sheegaysaan waa maamul waa gobol walba maaha puntland kaliya waa gobol walba looga dowladaha adduunka ku dhisan yihiin ama sharciga looga innaga inoo yaal dastuurka waxa dowladu tahay bay ku qoran tahay qof walbaba akhri shacbiyahu indhahala indhalii dhegeli'i baad ku socotaan shacabka soomaaliyeed waxa dowlad ka taqaaniin male waxa lowgeeda ka taqaaniin male shuruudaha laydinka raba ma taqaaniin shacab ahaan sharuudaha laga raba maamulada ma taqaaniin ma garanaysaa dowladda hoose guddiga dowladda hoose ee garowga fadhiya baa doortay buu yiri deni maayar inuu u noqdo gobolka puntland guddigii hadduu doortay lama xisaabtamayo
waxa uu samaynayana waa u jeednaa annaga nooma shaqeeyo soomaaliya uma shaqeeyo dowladda soomaaliya kama amar qaato waaba iskala weyn yahay imaaraad iyo kenya iyo dowladaha ka dambeeyo daaha dabadiisa ka xukumaya buddana u shaqeeya maxaad shacabka puntland dan ugu jidhuu yidhi marka sheekhu maxaad dan ugu jidha dhibaata uu nagu hayaa deni ama xaq dadka ha ku dhaqo oo xoolahooda iyo cashuurtooda wax ugu qabto 3 jibaarantay sixir bararka ku keentay dadkii lacagta faalsada oo garow iyo boosaaso lagu samaynayo aranjan ku samaynayo oo dollarka feyga ana ha ka joojiyo waxa naga joojiya lacagta yadii baa baaba'day wacyi ahaan baa sheekhu intaa u yiri adigu sheekhi maaragta meel u maray hameen barkii saq dhaxa gurigiisa aranjan kala baxeen cir iyo dhul meeluu geeyeen lama yaqaan ma cirkay geeyeen ma dhulkay geeyeen raad iyo jaan iyo cirib meeluu dhiga sheekhi lama hayo magaciisa waa soo raadinaya iyo reerkuu ka dhashayba waa soo raadinaya waayo arrintaanoo kala serious waay wax la qaran kara ma gabdhaha garowe iyo wiilasha lagu xaraynayo guryaha ee kaliyaha laga guranhayo ee la leeyahay kenyaan ku geynaynaayo diyaarad baan ku saaraynaayo halkaasaa laga qaadhaya wax ka jira ma jiraan arinjan baa dhiilkaa soo gashay kuwa baarlamaaniya xataa la og kuwa wasiiraha la og kuwa naaga ah oo dhaha guddoomiyaha haweenka naagaha dhaha maxaa taqaanaa ururka haweenka naaga ka mid ah oo dibadahaas ka yimid oo diaspora ah oo reer mataqaanaa puntland baa ka mid ah askar baa ku jidho saraakiil baa ku shuqul leh keliyaha carruurta la daldalanahayo waa share group sharing waa uu ku heshiiyey maamulka puntland ka dhisan uu ku heshiiyey in carruurta keliyaha laga garto iyo orgaanka laga gurto organka laga gurto kabacdina lacagta la qaybsado naaga dibadda ka yimid iyo niman dibadda ka yimid basheer bay ku yihin ma garanaysaa saldhigooda ugu weyn waa xamar kan ku xigana waa nairobi awal ardisabab uu ahaan jiray 2016 baa ardisababa ay ka wareegsadeen oo nairobi u wareegsadeen gruubkaas mafiyada okay maaha marka puntland oo kale maaha keliya maaha meesha keliyaha iyo beerka iyo organka lagu guranaya maaha puntland oo keliya all waa soomaaliya ogaadenya ku jidho nfb baa ku jidho jabuuti baa ku jidho labadii gobol oo hore baa ku jira somaliland ka soo bilow somaliland baana laga bilaabay 2007kii baa laga bilaabay somaliland waxaana bilowday gabar reer somaliland ah oo sajuu ah iyo gabar aan somaliland ahayn oo sajuu ah gabadhii hana abukar iyo gabar kale baa fidmada soomaaliya ku bilowday 2007kii baa labada naagood fidmada la yimaaday kabacdina boqolaal waxay ajanabi iyo soomaali ah bay gaadhay waxaan maqlay dad kenyaana oo rag iyo dumaraba leh xamar inay joogaan oo dadka keliyaha gura kala shaqeeyaan oo nfd ka keenaan carruurta baan xataa maqlay dad shacaba oo kenyaana oo keliyahaas gruubkan la mid ah organka guranaayo oo ay xamar joogaan baan xataa maqlay garow way joogi jireen waxaa laga ceyrshay 2013 baa laga ceyrshay garow way ku lahaayeen saldhig askar baa fashilisay marka midna waa la qabtay oo garow waxaa lagu xiray xamar gaalkacyaan leeyahay gaalkacyay ku lahaayeen 2013 baa laga fashiliyey ninkii kenyaanka iyo dhakhtarka sheeganayeen waa la xiro garow waa lagu xiray maaqan inuu faroo la sii daayay iyo in kale gruubkii kalena waa dhunteeno askarta way ka dhunteeno markay fashilmeen bay carareen oo wejigoodaba lama arag arrintaanu marka mudday socotay 2017 up to now gobolka shanta soomaaliya carruurta waa laga daldalahay tahriibkii waxba maaha tahriibki 1 malyan bay sii marayaan baa la yidhi hadda carruurta keliyaha lagala baxay ilaa 2007 yaa samaynaya dadka dowladda u shaqaynaya samaynaya maxaa yeelay maamul kasta dowlad baynu dhahaynay hadda puntland dowlad ma aha maamul bay tahay maamuladeeda dadka ku shaqaynaya lug bay ku lahaayeen waayo iyaga mashruucyadan ogolaaday ogolaansho la'aantood wax samayn karaa ma jiraan dhiil bay ku leeyihiin lacagta calaa qof bay dhiil ku leeyihiin xamar sidoo kale gobol ayna joogin malaha gobol hadda waxaa saldhiggii ku soo ururay garowe hargeysa iyo xamar iyo marka afartaasaa hadda saldhigga ugu weyn oo carruurta la geeyaa ay tahay xarumaha ugu waaweyn waa afartaa waa hargeysa iyo garowe
iyo xamar iyo marka waa afartaas intii kale baraanjiyaday ku lahaayeen waa ka soo rarteen xoogaa fashil bay dareemeen miidiyaday ka maqleen kalyaa la gurtay carruurta la waayahayo waa carruur la qasho adhadhaa bay maqleen marka waa wareegsadeen waa cad wareejiyeen laakiin hawshii weli waa socotaa maxaan leeyahay marka shacabka soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba maxaan leeyahay dadkiinna iyo dalkiinna iyo dalkiinna diintiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinna daafacda qarankiinnana daafacda qaran la'aan lama noolaan karo qaran waxaa la dhahaa dowlad rasmi ah oo caalamka laga aqoonsan yahay sida dowladda inoo dhisan oo kale hadda maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiye qarankiina difaacda qaranka markaad difaacdaan dadkii iyo dalkii iyo diintii waa badbaadayaan maanta ninaan isku aamini karno oo qaranka iyo ummaddaa soomaaliyeed iyo dalkaas dihin ee barwaaqadu saa u dhex jiifto iyo dadkiis iyo diintiisa aan ku aamini karno maxamed cabdullaahi farmaajaa jira ma been baa la sheegaa mise run aniga runta igu naca ikaraacsada inabcaada ilaahay baa jecelo ajar ii qoraya runtan sheegaya runta kama baaqdo kamana leexdo nin jeclaysi iyo qabyaaladna already anigu barfasor baan ka noqda ka baramoose waa ka tegi ha dareenkii lixaad baa ii dilaacay qofka dareenka lixaad markuu u dilaaco qabyaalad ma yaqaan cadaalad darre ma yaqaan nin jeclaysi ma yaqaan jaajuus iyo dhuuni qaata ma yaqaan qaran dumis ma yaqaan soomaali nacayb ma yaqaan dareenka lixaad hadduu kuu dilaaco perfect baa tahay perfect completamente qof wanaagsan baa tahay marka dareenkiina lixaad ha dilaaco dadyo waxa aad soo madheen waad ogtihiin waxa aad soo madheen cadaabkii adduunkaas dadka soomaaliyeed soo maray ama dibadda ha ku noolaada ama gudaha annaga dibadda joogno waxaad moodaa inaan khayr haysanno abadan hoos baan u oynaa qalbigaan ka oynaa uurkaan ka oynaa uurkutaalaan qabnaa uurkutaaglaan qabnaa perfect ma nihin boqolkiiba boqol janno firdowse kuma jiro dhibaatooyin badan baan qabnaa maxaa yeelay awlaaddayadii iyo da'yartayadii baabaa na dhaaftay maxay tahay khayrkaan haysanaa marka nafti baa nugu jidhe dadka gudaha ku jiraana cadaabkii adduunkay soo mareen cadaabkii adduunka waa la bahdilay waa la yasay waa la baaba'iyey waa la quursaday waa la dhacay waa la dilay waa la kufsaday oo maxaa u dhiman hay-adaa samaynaya waxaa iyo ciidamo yaryar oo lacag la siiyo tuuta loo geliyo la yiri meel heblaa laga xukumaa qaran baa hadda idin dhashay dowlad baad leedihiin ciidamaa la samaynaya ciidama intaa la samaynaya beel ilaahay keena 3 biloodba bukcad baa soo baxda 3 biloodba kufcad baa soo baxda 3 biloodba waxaa soo baxa ugu yaraan 300 oo askari yaa 3 biloodba soo baxda oo turkish noo soo saarda oo madaxweynuhu meel walba u diray meel walba Uganda u diray inuu soo tababadho Ethiopia u diray inuu soo tababadho Eritrea u diray Djibouti buu u diray maxaan ku iraahdaa Turkish buu u diray madaxweynuhu ma harsan ma nasan mu hadlooy mu qayliyoy mu jawaaboy mu kan yeeloy waa waray mu dhahoy war ninkan waa waray loo meesha uma u fariisan inuu wax soo saaro u fariisto wax inuu soo saaro wadanka inuu badbaadiyo ciidan badbaadiyo inuu wadanka u dhisaa ka go'an wixii khasaaraya iyo wixii lumaya iyo wixii la baabi'inayo shuqulkuma laha labada dhagood buu ka furays saasuu dhagaha uga furays haba maqlu yiri ciidan idifaaco oo igu filan iyo qalabkiisa ilaa aan helo ninkii hadlayo iska hadal ciidan jawaab hayaana ma jirto waxay doonayaan intuu raadiyo muqdisho imaado inuu noqdo 24 saac nin raadiyo muqdisho ka hadla raadiyo muqdisho waxa loo dhisay madax looga dhiga oo ku mushaar qaata maxamed cabdi maareeye isagaa la rabaa inuu 24 saac hadlo oo dadka wacdiyo oo wax u sheego oo dowladda iyo shacabka isu keeno isagaa la rabaa maxamed maareeye 3 jeer horena waa iri haddana 4 waa leeyahay ka wareeg meesha nin jeclaysi ma rabna annagu ama hanuunin iyo orientation fur oo gobolada gaarsii oo dadka wacyigeli oo khatarta carruurta la guranaya ka wacyigeli oo khatarta amni darrada ka wacyigeli oo khatarta nimankan muxuu ahaye sumaysan ee taraytarada ah ee maafiyada ka wacyigeli haddii kale maareeyo ka wareeg meesha I'm telling you true meesha bad afka balaqsan ka siin waxaa taraysana ma laha rag badan oo wasiirre aba u baahan in la ruqseeyo maxamed cabdullaahi farmaajana maareeyahan arkay wuxuu yidhi hala soo celiyo ha loo soo celina dadkaba ma hanuuniye maxaa loogu talagala
wacyigelinta iyo xanuuninta dadweynaha iyo warfaafinta keliya loogu talagalay wasaaradda mana uu sameeyo wax masanaba maxaa loo fiirsanaya ninka shaqadiisa qabsan waaya off waaya waa in shaqada laga tuuro waay maxaa yeelay khayran ninkuu ka siqsiqo oo uu arka inuu dabacsan yahay shaqaduu ka tuuri jira waa ku sibood garaynaya waa loo dhowranayaa hadda ra'iisul wasaare waxba kama sheegayo sababtoo ra'iisul wasaaruhu waa cusub yahay wacdarihiisa markaan aragniyo qoraalkiisa iyo hadalkiisa markaasa ama sixi karnaa ama sibood garan karnaa inta ka horeysa maya qofkana waa in la saxee ma aha in la caayo iyo in la jaa'ifeeyo maaha dadka iyaga waxaan u sheegahayaa marka maxamed cabdullaahi farmaajo loo waa maxamed ama loo waa nin maxamed cabdullaahi farmaajo waa loo waayey qof uma hayno ilaa hadda ilaa 91 ma aanu arag isagoo kale waddani daacad ah weeye waa nin dabacsan oo aad u qabow waa nin samir badan oo deggan waa nin tanaasud badan waa nin reere maslaxa ah waa nabadoon iyo madaxweyne isku yar iyo badbaadiyaha qaranka military force generaal maxamed cabdullaahi farmaajo waa jananka ciidanka marka ciidanka isagaa sameeyey uu ku mintida wixii kaloo dhan hoostiisa waa lagala baxay laakiin ciidankii waa lagala bixi waay shacab yahow marka maanta aday tala kuutaa nimanka maafiyada ah ee aad u jeeddaan oo indhihiinna ugu jeeddaan miyaad raacaysaan mise qarankiinnaad raacaysaan waxaan codsanayaa oo isimada ka codsanaya kolle isin ma jire laaluush bay wada qaataa caawa kii la qoro ama la doorto laaluush buu barri subax labada loogu dhimanaya labada loogu saa u hoganaya koraddana waa laalaadinhaya isagoo le laaluush ha lagu siiyo imaarad laga keenay maayarada xuxunka ahoo jawaasiistaabaa la wareegay wax isin la yidhaahdo oo soomaaliya leedahay male shalay waan iri maantana waan leeyahay berrina waa odhan doona haddaan noolahay yes jawaasiis wey laaluush qaatayaal wey oo jaajuusku lacagtuu soo helo ayay wax ka qaataa muxuu isin ku yahay xagga iga dhig hayay kala reebi culummo wax la yidhaahdaana ma jiraan kii hadda shiikha oo inta yar ka dhiidhiyana waaba la dilayaa waxa la leeyahay waa sunna waa jamaaca oo waxbuu garanaya dadku duufsanaya waa wahaabiyo shacabku waa wahaabiya u badan waa la fidmeeyey dhallinyaradii oo dhan waa la fidmeeyey dhallinyaray waxaan idiin sheegayaa wahaabiyadu inayna ahayn diin islaam inayna ahayn rabbina soo dejin raanayna ka ahayn hadday ixtisaam tahay hadday takfiir tahay hadday al-akhwaan tahay hadday al-shabaab tahay dhammaantood magacyada boqolka magacoo ay la baxeen ixtisaam baa u badan puntland ixtisaam miyay ahayd ha ixtisaam wax diina oy haysataa ma jirto waa kaafirkaa dhaama kitaabka qur-aanka oo ilaahay baa sheegaya nimanka takfiirka ah nimanka ah ikeen ixtisaam nimanka la yidhaahdo nimanka maxaa al-akhwaan wax diina ay haystaan waa wahaabiyo wahaabiyana waxa weeye khawaarijna shiicadaba dhaantaba culummada soomaaliya marka waa noocaas dhallinyaradii duufsade wixii dowladda u shaqaynaya duufsade ciidamadii duufsade dad badan bay cagta mariyeen dadka ha laga wacyigeliyo wahaabiyadu ha laga soo celiyo dibaddiya daakhilba makarofoonada ha la qaato ha dilaan hadday rabaan waan ogahay way dilayaan shabaab baa dilay bay leeyihiin shabaabna ma jire wahaabiyadaa dilays culummada wahaabiyada ah qorshaha waxbay ku leedaho dhiil bay gashay ama keliya ha la gurto ama ha la qabsado ama ha la shiiceeyo ama wahaabiyaha laga dhige baaba'a waddanka iyo burburka iyo diin la'aanta waddanka culummadu kow iyadaa ka ah al-shabaab iyadaa keentay waayo sheekh shariif baa keenay sheekh shariifna wahaabiyuu ahaa allow ma idiin sheegay dhallinyarooy dhegelihi indhalihi ha ku soconina wake up fura indhaha iska qabta nimanka iska qabta qof kasta oo wahaabiyaha ka soo horjeesto qof kasta masaajidyada ay ka dhisdhisahayaan carrada dumiya dab qabadsiiya habeenkii inta la hurdo dugsiyada ay furahayaan dab qabadsiiya carruurteenna iyo haweenkeenna lagu duufsanaya wahaabiyada haddaa ku ogaatay waayo culummo kale ma joogto sunna wa jamaaca joogto waa laga ciirsaday sunna wa jamaaco gaalkacyo waa joogtaa meel heema la dhaho ayaga ku daba tukada maxaan ku idhahdaa kuwii dhusamareeb joogay oo intaad ogeydeen al-shabaab
ka ilaalinayay oo galmudug ay nabadda ahayd oo biiska u fadhiday waa laga ceysh maalintii dhaweyda khayr carrada ka ololaynaya qorqoor inuu soo saaro baa laga ceyri ayaga ku daba tukada kulli inta kale waa alkhawaarij alwahaabiya kulli intooda kale waa alkhawaarij alwahaabiya dibadda ayagaa nagu haysta ebed dibadda ayagaa masaajidyadii baa laba isugu dirinahaya qofaan wahaabi ahayn masaajidka ma soo geli karo hadduu soo galana lacag waxaana laka qaadaa koodhi oo canshuura masaajidka haddaad soo gasho mikrofoonku salaadu markay dhammaato qabsanaya wuxuu leeyahay qof walba intaasaa laga rabaa 14 barina intaa dhiib 14 barina dambana intaa dhiib waa canshuur masaajidkana shacabkoo dhan baa dhiso gabdhaha dahabkoodii ku dhisay shacabku masaajidku dhisay maanta haddaad ku soo tukato wahaabiyada haysata masaajidyada Melbourne waxay dhahayaan lacag baa laga rabayo halkaasaa la dhisaa 5 soon baa lacagna la ka gurayo waa la fidinaya lamana taaban masaajidka ugu weyn Melbourne magaciisa ma aqaan ma garanaysaa North Melbourne ku yaala marka wahaabiyo cirqmadeedii already waa dhaxalay 35 sano cirqmadeedii iyo tuuganimadeedii iyo diin la'aanteedii iyo marin habaabinteedii iyo diin ku tumashadeedii waa aragnay inay nagu sii socoto maaha innagaa ka badan ilaa hadda way yar yihiin minority waay inta majority-ga ee sunna waa jameeca oo dibadiya daakhilba joogta hala dagaasho wahaabiya intii noqotay xataa ha laga dhaqo ha laga shubo waxay dhalinyarada ku shubeen masaajidyadooda iyo dugsiyadoodana godanka Soomaaliya ha laga burburiyo Sheekh Cali Wajiis waa wahaabi madaxtooyada masaajidka ku yaal buuna ka qudbeeyaa sheekoy ku nacay hal aan qarinaya malaha aniga adduunkan waa ka tagaa run baan uga tagaa been isuguma imaanayno ilaahayna ma kalmad been aan ogahay ii qabsan mahayo wax kiyaar aan u arko u maqlay un baa sheegi okay waxaan idin leeyahay dhalinyaro dawladdeena badbaadsada qarankiina badbaadsada qabyaalad tuura cadaalad darro tuura ninjaan ISIS tuura nimankan maafiya biraas daroosada aho annagoo u jeedna futadoodiioo qaawan carab u sii socdo ka soo socdaa oo daxiriga iyagoo iyo nool saa ka leeyahay iska qabta hangool isaga qabta culummo idinka qabanaysa male isima idinka qabanayo male laakiin ciidankii baad haysataan ciidanka Jubbaland haysato ciidanka Puntland haysato labadaas ciidan waxa waaye Imaaraad baa xukunta iyo Kenya laakiin ciidamada kale oo dhan oo gobolada ama ka dhisan ama ciidanka qarankeena oo dhisan ee jamhuuriyadda Soomaalida iyo shacabku ha iskaashadaan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo shacabku ha iskaashadaan ciidanka Imaaraad iyo America iyo ka dhisteen iyo mataqaana Kenya ay Jubbaland iyo Puntland ka dhisteen kuwaas kuma waxba inooma tarayaan ayagaaba wahaabiyada koobka Somalilandna waa u hambalyeynaya gobolkeedii way adkaysatay nabad bay ku adkaysay khilaaf baa ka jiro qabyaaladu ha ka jiro cadaalad darro ha ka jiro laakiin ma soo galin khawaarij way dhoomaan culimadoodu waa khawaarij laakiin tallaabo ma qaadi karaan Silaanyana uma ogolayn musabixina uma ogolan khawaarij inay awood ku yeelato Somaliland thank you baan leeyahay maamulka Somaliland ka dhisan yes anigu hadday taladayda tahay oo laga yeelayo war go'aan dhihi lahayo aqoonsi baan siin lahaa niman nasaba weeye oo dantooda iyo qadiyadooda iyo yoolkay u socdaan og ma jiro khawaariju awood badan kuma laha Somaliland waxaan diimaha sheeganayo culimadoodu way yihiin oo waa wahaabiyiin laakiin way gaabsadaan wax baawara ma laha way gaabsadaan sida carrada kale ugu fanacsadaan uguma fanacsadaan way gaabsadaan way baqaan maxaan ku iraahdaayay iikan shabaabna maba joogaba takfiirka iyo kuwa kan al-akhwaanka iyo maxaan ku iraahdaa akhwaan muslimiin kuwii la baxo shayaadiinta aha waxaasoo dhan way baqaan Somaliland way ka baqaan way iskaabiyaan meelahan kale soo aadaan oo ka ababa iyo dibadaha iyo Afrikadaas iyo Nairobi iyo meelaha ka dhaha Somaliland maya nabadeeduna waa sugan tahay wahaabiyadiina way xakamaysay kaliyihii xataa la guranayay aad bay u dagaashay TV-dan kala socday marka Somaliland waxaan leeyahay cadaaladda iska daaya cadaalad darrada waxaan leeyahay qabyaaladda iska daaya waxaan leeyahay xaq wax u qaybsada waxaan leeyahay nabadiina adkaysta inaad wadan adduunka Ilaahay u naagaysaan ma ahane inaad idinku isxukuntaan baa ka qurux badan
mar imaaraad adabada ku wadataa mar etoobiya adabada ku wadataa sida kuwan kaloo kale oo dulloobay waxaan idin leeyahay dowladdeenna adkaysta farmaajo gacan ha la siiyo farmaajo waa cadaalad wadani ah inuu soo noqdo ha lagu dadaalo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu isagoo nabada noo soo celiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa cadaalad waddankayaga inuu gaaro ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidankayaga kor inuu ka dhigo kor xoogga dalka soomaaliyeed allah ka dhigo kor madaxweynaha yaga allah ka dhigo kor ummadda soomaaliyeed allah ka dhigo kor qarannimada iyo calankayaga allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والهبار قال لك حقوق هذا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدو أنا ما تشيلين ده الحمد لله